wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland ayaa shaacisay natiijada imtixaanaadkii fasalka afraad ee dugsiyada sare ee Puntland munaasabada oo ka dhacday xarunta wasaaradda waxaa goobjoog ahaa maamulayaasha dugsiyada sare ee Puntland agaasimaha imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada Puntland Axmed Saahid ayaa sheegay in arday gaaraysa 4359 arday imtixaanka u fariisteen isagoo faahfaahin dheeri ka bixiyay qaabka imtixaanaadka ardaydu u galeen iyo dugsiyada sare ka qayb galay ardada imtixaanka inoo gashay guud ahaan marka la isu geeyo waxay ahaayeen 4000 waa arday imtixaanka u fariisatay 4359 arday bay ahaayeen form 4ku 2759 waxay ahaayeen wiilal 1600na waxay ahaayeen gabdho ayay ahaayeen ardada baastay imtixaanka ku gudubtay waxay ahaayeen 2696 arday oo wiilal ah iyo 1590 waxaan leeyahay 54 gabdhood imtixaanka waxaa ku dhacay 40 wiil iyo 37 gabdhood ayaa ku dhacay waxaana meeshaas ka maqnaa 32 arday ayaa meesha ka maqnaa oo imtixaanka aan imaanin qaabkaasi waa qaabkii ardadu imtixaanka ugu fariisteen markii imtixaanka ardadu ay galaan natiijada soo baxda waa natiijo tartan ku salaysan waxay u dhacday iyaduna oo ardadu ay isugu qaybiyeen grade-kii maadooyinka ay isugu qaybiyeen 636 arday waxay keeneen grade A taasi waxay u dhigantaa 14.6 boqolkiiba ardadii imtixaanka u fariisatay ayaa grade A ka keenay 1282 arday waxay keeneen grade B taasoo u dhiganta 29.4 boqolkiiba ardadu inay keeneen grade B grade-ka C 1606 arday ayay ahaayeen taasoo u dhiganta 36.84 boqolkiiba grade-ka D waxaa keenay 762 arday waxaan leeyahay 26 arday taasoo u dhiganta 16.66 boqolkiiba ardada dhacay waxay ahaayeen 77 taasoo u dhiganta boqolkiiba 1.7 u dhiganta ardada maqnaana waxay ahaayeen 32 taasoo u dhiganta 0.7 u dhiganta guud ahaan 4359 arday ayaa sidaas imtixaanka ugu fariisatay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Abshir Yuusuf ayaa sheegay in dowladda Puntland uu ka duulayso horumarinta tayada waxbarashada Puntland in imtixaan wanaagsan la qaaday waxaana goobta ka aqriyay ardada kaalimaha hore ka galay imtixaanka oo u badnaa dugsiga sare ee Leejax Boosaaso ugu horeysa saad ula socotaanba imtixaanka runtii Puntland ay qaaday imtixaan heer sare oo fiican oo nabadgelyo ku soo dhamaaday weey arday fiican oo tayalena waa soo saartaan imtixaan sidiisaba dee wuxuu leeyahay waxa la eegaa heerka uu joogo baa la eegaa markhaanti waxa uu arday tayo badan in la soo saaro jaamacadaha aan u diro ayaa markhaanti ka ah waayo waxay dhammaan waxay ka soo wada saareen ammaan miiska dhaqaal bay soo wada saareen intii jaamacadooda ay galay oo dhan halkaas waxa weeye cayaar maaha arday shiraban baynu diray 10 arday ugu sareeya baan halka soo jeedinaya iyo iskuulada kala yimaadeen ardada 10 ugu sareeya marka la leenahay waa 10 kaalimood weey annaga sanadka 6 iyo 10 bay noqdeen ana 10kii ugu sareeyay laba meel wada galay 3 baa meel wada gali doona 4 baa gali doona marka insha Allah marka sii daayo aad arki doontaa halkii 10 arday ugu sareeyay 10 kaalimood ugu sareeyay waan u bixinaya 6 iyo 10 baa halka ka soo baxday xabada ugu horeysa daan galo waxa la yahay Saciid Xasan Jaamac Maxamed baa la yiraahdaa النجح buu ka soo baxay oo Boosaaso ee buu helay 96 dhibic 29 buu dhikaas ku dhuftay الله يبارك بان لي runtii ninkaas الله يبارك xogaas إن شاء الله marka waxa leenahay mid labaad waxa ku xiga ardayga la yiraahdo Abdul Aziz Abdi Artan Ahmed oo Boosaaso public
buu helay 95.750 buu ninkaas ku dhuftay haddaan hoos soo dego kaalinta saddexaad labaa wada galay waa aniga lahaa kaalin baa dhowr qof geliya qofka hore waa Ibrahim Maxamed Ismaaciil Axmed oo alnajaxa buu helay 94.920 buu ku dhuftay isla kaalinta waxa la galay Cabdullaahi Muxyidiin Maxamuud Yuusuf oo ah Nawaawi Garoowe isku hal kaalin bay galeen labadaas waa kaalinta saddexaad labada qof baa wada galay kaalinta afraad haddana laba wada galay kaalinta afraad waxa galay Cabdisalaam Maxamed Ciise Shirdoon Boosaaso Public buu ku dhuftay 94.410 ardayga isla kaalin la galay oo kale waxa la galay waxa la Maryam Saciid Maxamed Aadam oo Imaam Nawaawi Boosaaso iyana intii la ku dhuftay 94.14 okay saddex baa shanaad wada galay kaalinta saddex baa wada galay kan ugu horeeyay waxa Cabdullaahi Qaasim Cali Faarax waa najax buu helay 93.86 Sakariya Saciid baa la galay Jaamac Cabdi Imaam Nawaawi Boosaaso isna 93.86 waxa kaloo isla kaalinta la galay Cabdiraxmaan Cabdi Ibraahim Saalax al-Najax weeye 93.86 iyagana mabruuq bay leedahay insha Allah okay kaalinta lixaad laba wada galay kaalinta lixaad qofka ugu horeeyo Cabdi Fataax Axmed Cabdullaahi Xasan Imaam Nawaawi Boosaaso 93.71 kan qofka kaloo la galay waxa weeye Cabdi Xakiim Maxamed Xaashi Yuusuf waa Cumar Samatar 93.71 iyagana waxa la mabruuq baan leenahay kaalinta toddobaad laba wada galay qofka hore waxa weeye Maxamed Cabdi Maxamed Cabdullaahi Imaam Nawaawi Boosaaso buu helay 93.57 kan la islaama meesha la galay waxa weeye Jaamac Cabdi Khaliif Cabdulle Maxamuud alwaaxa weeye marka halka waxa weeye isna intii in lagu helay 93.57 sideedaad waa hal qof waa gabadh Salmo Yuusuf Daahir Aadam النجح ويه وحيكون فتاي 92.86 الله يبارك gabadha ku xigta oo sagaal gasho waa Maryam Cabdullaahi Ducaali Faarax Boosaaso Public 92.71 ardayga tobnaad galay waa Cabdirasaaq Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed Imaam Shaafici weeye 92.14 halka 16 arday ba oo ah kaalinta koowaad wada galay weeye haddaan intaa ka baxo waxaan hambalyeynaya laba calaaman hambalyeynaya warta maalmaha ka gabdhuhu wacdaray dhigaayeen xalay waxa jirtay meel tartan lagu suugaanta lagu tartamayay awal rakaya gabi jiray gabdhaha soo baxay haddaad arkay gabay gabiyeen aad yaabaysa rag halabuur kale markuu arkay gabdhaha dib u caraday awal gabdhuhu de buraanbur iyo adduun kale bay yaqiineen laakiin maanta waxay ku soo biireen kaalinta aftahamada bay ku soo biireen BBC barnaamij fiican ay qabatay saddex gabdhood ayaa gabayga soo bandhigay waa arki doontaan insha Allah marka halka habeen hore bay ahayd maanta gabdhaha wacdaraha halka ku jira saddex gabdhood oo wacdara dhigay oo hal ku jira 10ka ugu sareeya baa halka yeelinaya hambalyo iyo salaana ugu diraya gabadha ugu horeysa waxay kaalimaha ugu sareeya imtixaankan natiijadiisa maanta la soo gudbiyay waxaa galay iskoolka Al-Najax ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari Asad Saciidad Puntland TV Garowe